بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي لبندبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت بهان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستان لينا الله نوغد ونحريستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo badbaadiyo. ninbaa waxaa laga sheegay habar dugaagay halbaa qaban. maanta ninbaa isa soo dhigay masraxa siyaasadda, horeyna ugu fashilnaa, haddana banaanka isa soo dhigay. ninka Faysal Roble la yiraahdo waxyaabo badan baa dadku ku qabsadeen, laakiin anigu dhowr qodob oo kooban baan ku soo koobayaa ama ku qabsanayaa. waa marka koowaade ninka la yiraahdo Faysal, siyaasadda la yiraahdo political prostitution baa dhaqan u ah, ama ka buufaysiga, ka ganacsiga, ama kelmadaas aan rabin inaan af Soomaaliga ku iraahdo baa dhaqan u ah. tweetkaas aad arkaysaan ayuu qoray isagoo farmaajo ku eedeynaya iyo Khayre iyo wasiirkooda arrimaha dibadda inay ummadda shacabka Soomaaliyeed xaq ugu leeyihiin inay hor yimaadaan mikrofoonka oo ay cadeeyaan dekedihii ay siiyeen Abiy Ahmed. bal dhageyso 7 bilood ka hor isla mowqifkaas qodobka laftigiisa waxa uu ka qabay. ogaansho iyo u saxiixid waa kala maxamed cabdullaahi farmaajo uu la soo hadal qaaday prime minister Abiy inta kado ay ka wada shaqeeyaan wana dhistaana afar takadood oo laakiin magacooda aan la sheegin, laakiin tirada la caymay waa jirtay. laakiin wuxuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo officially u saxiixay ma jiro. xafiiskiisa faylashii ku wareejiyay madaxweyne xasan lama hayo, baarlamaanka Soomaaliya ma arag, fulintuna ma arag. marka wada hadal sheeko shaah lagu sheekaysanayay bay taas noqotay. arinta uu la soo hadal qaaday Abiy Ahmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud afarta takadood, madaxweynuhu wuxuu ugu jawaabay wax faylo la ii soo gudbiyay ama baarlamaanka aan ka helay ma jiro. kaasi waxa uu ahaa daawadayaal Faysal Cabdi Roble oo isagoo la sheegay in uu yahay xubin ka tirsan guddi la sheegay in uu yahay guddiga difaaca ee Soomaaliya oo si qarsoodi ah horaantii sanadkan uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Faysal waxa uu leeyahay in madaxweyne Farmaajo waa inuu dadka hor yimaada, balse sidoo kale waxa uu carabkiisa ku sheegaya in 7 bilood ka hor madaxweyne Farmaajo aanu jirin wax heshiis ah oo la galay dalka Ethiopia. sidaas aad maqlaysaan 7 bilood ka hor wuxuu aaminsanaa, sheegay, la jahray, banaanka la istaagay in Farmaajo inuu dekada bixiyay aan waxba ka jirin, sheekada shaaha iyo fadhi ku dirirka ay tahay. maxaa isbedelay? waxaa isbedelay shilimaan baa ku dhacay callboxkaas Faysal ah. shilimaan baa ku dhacay oo Xasan baa hayrgaraystay oo ku darsaday guddi la yiraahdo guddiga difaaca qaranka. ma intaasaa joogtaa gebigaaga? ma intaasaa joogtaa? inaad shaqaysan jirtay oo madaxa ahayd baan moodayay. ma saasaa u gaajaysan tahay ilaa heer aadan mowqif yeelan oo mowqifkaagu forseel yahay oo berrito haddaan doono aan ku gadan karo? ma halkaasaa joogtaa? intaasaa jirtaa? sidaasaa tahay. qodobkaas kelmadda intaasan ka oranay. qodobka ku xiga dhaqanka haweenka ama masayrka waxa la yiraahdo ayuu caan ku yahay Faysal. Farmaajo oo ay yaqaaneen, Mareykan isku yaqaaneen, ayuu wuxuu iska jeclaystay xilligii uu madaxweynaha noqday inuu ka dhigi lahaa xil u dhiibi lahaa. Farmaajo markuu qiimeeyay aqoonta uu leeyahay wax ku dhisay, wuxuu ula muuqday inuusan istaahilin in shaqo loo dhiibo, inuusan principle lahayn, mowqif siyaasadeed lahayn, aragtina aysan isku waafaqsanayn. saa darteed wuu isdhaafiyey. arrintaasi waxay keentay 5 sannadood inuu tafaha haysto, 5 sano iyo bar caydiisa inuu tafaha haysto oo saa u xaganayo, oo xataa TPLF uu noqday voice iyo cod isagoo Farmaajo la diriray. cid kastoo Farmaajo ka soo horjeedana uu saaxiib iyo Allah ka dhigtay. maxaa isbedelay? Farmaajo waa ka baxay shaqadii
محو الدفاع يا هذا تضرب بالأذكار أنت عن كرسي كان لودي من وعلى قدرين قد دفاع محايس بدلي رجدا فرماجة يا إركاسة إنه صول لابته وحسيدي كان يا أبال بل وحسلي بل مركلة نينكي هادو صول نقضو وين تاسو أكوهير قرية really داتشي وحا قضب صدح هذا فيصل وانين دول قادير كلمة إسداف داف سني كدب مركان سوقلي كليب كاس عبد الجليل شو وكدوبي وكاga hadlaya shalay iyo maanta sida uu san mowqif u lahayn baan soo galiyay kelmada yar yarna waa ku dul qoray Twitter ku igu soo caayay muxuu igu caayay laba qodob igu caayay mid waa dhaqanka wastiga oo bidixlaha isagoo ka sheekeynaya aniga dabadayda yaa nin dabadii ka sheekeeya magaciisa idinkaan idinheynaya qodob kale waad wuxuu igu eedeeyay child rapist caruur baad kufsatay tolow isaga aqli caruure ma isagu ahaa qofka la kufsaday yaa u sheegay xagee buu joogay ma meesha wax lagu kufsanayay buu fadhiyay xagee bayse ku qoran tahay waxaa laga yaabaa odaygu inuu sheegto aqoon-yahan laakiin aqoon-yahanku dhaqamada uu leeyahay ma laha aqoon-yahanka waxaa lagu yaqaan inuu xuduud leeyahay iyo limit waxaa lagu yaqaan haddii wax sheegayo sources ama meel cid uu xigto iyo caddayn meel uu wax saaro ku beego farta ku fiiqo inuu leeyahay xaggee bay ku qoran tahay wuxuu ka maqlay ciyaalo social media ku jira oo qolyo caraysan oo isagoo kale ay xoogaa usoo dhiibeen oo aniga caaya iyo kuwo qabyaaladii maskax martay oo yar yara oo meelahaas basement ku jira oo wax soo qorqora ayuu ku arkay social media marka ka qaataa odagu xogta xog ma raadiyo mana baaro iskamana hubiyo ilaa quraanku wuxuu quraanka ma qayn waa misay la quraanku wuxuu ku yiri oo ilaahayna ku yiri in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu qiraa'o kale waxay leedahay fatathabbatu markii wax war ah idin soo gaaro qof faasiqa uu xog idin soo dhexdhigo hubiya iska hubiya xagee bay ku qoran tahay child iyo rape labada kalmadoodba wax jira maaha waxaa jirtay kelmad aniga laygu dacweeyey hore laygu qabsaday layna diiday inaan maxkamad la tago waxaa la yidhi haween islaan weyn oo takhtar taalla oo isbitaalka ku jirta ay dacweysayoo waxay tiri markuu fiisitaynayey oo itaabanayay oogadayda was intention kalaa ku jiray qalbigiisa wax kalaa ku jiray xabadaas baa ciyaalla intay qaadeen bedeleen oo toos u bedeleen waxay dhaheen caruur quraan loo dhigo qaar baa xataa wiilal ku sheegay kuwaasoo ka soo qaata waa ninka marka tathabutka iyo iska hubinta iyo aan shuqul ku lahayn waxay ku tusaysaa aqoontiisu inay daloosho anigu waan maqlay inuu aqoon-yahan yahay laakiin kama muuqato qodobka afaraad waxa uu caan ku yahay isagoo si isu qalloocinayo oo iska dhigaya nin bala ah inuu hadallo wada daloola oo caqli xumo ay afkaa ka joogto uu ku hadlo dulqaadkiisuna aada u yaryahay markii aan laba kelmadood ku celiyey oo idhi war ma waxaa tahay qolada bidixlaha ah maxay tahay maxaa dabadeeda uga sheekaynaysaa baloog buu dhab igu siiyey oo adeer haddaadan kulaylka u dulqaadan karin maxaad u daandaansanaysaa rag kaana codkarsan kaana aqoon badan kaana nolol iyo sharafba badan kaana magaraysa adduun iyo aakhiraba rag kaaga fiican maxaa adeer faraha kuu geliyey aakhiro ilaahay subxaana wa tacala baan ka rajeynaya aan kaaga fiicnahay baan ka rajeynaya laakiin adduunka waa inaan kaa roonahay oo kaa fiicanahay maxaa adeer faraha kuu geliyey nimaada iska dhicin karin oo mikrafoon haysta ma ujeedaa oo karbaash kaala daali kara adeer maxaa faraha kuu geliyey in adeerkaa farmaajo raganimadiisu ku gaaray wixii uu noqday maxaa tafaha u haysataa oo uga laalaada maxaa ugu masayrsan tahay maxaa cuqdada ku geliyey intaa kuu dhaafi maayo maanta waxaan sugayaa inay jawaabi kaa timaado khayr badan baa idin rajaynayaa saa igu taqaanaan siyaasiyiinta ma daayo maadaama uu xil ku fadhiyo la dayn maayo laakiin shacabka uma jawaabo maadaama uu isagoo siyaasiya uuna soo doontay
هذا وين يعلو ده يا أنت سيقطع غير حمر كأكو مهما هذا دورة دي منين كيد نسوي فاكته تقال كيني ربطها فيصل سيانا صوت دونتي هاو أتكيستو كولايلكا السلام عليكم ورحمة الله.